bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso ay ku sugan tahay cibro iyo waalan qaadasho. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay dhibaatada laga dhexlayo dulmiga iyo gardarada. qisadan ayaa waxay dhex martay nin aada u kibir badan iyo nin maskiin ah. maalin maalmaha ka mid a ayaa ninkani kibirka badan wuxuu soo aaday badda, wuxuuna la kulmay nin maskiin ah oo ka kalluumaysanaya badda. ninkani maskiinka ah ayaa wuxuu soo helay kalluun aada u weyn, kadib waa uu soo qaatay isaga oo ay farxad ka muuqato. isaga oo xeebta socdo ayaa waxaa la kulmay ninkan kibirka badan, wuxuuna ku yiri ninkii maskiinka ahaa, waxaan doonayaa inaad kalluunkan isiiso. odaygii maskiinka ah ayaa ku yiri, kalluunkani kuma siin karo, maxaa yeele waxaa ii jooga caruur fara badan oo gaajeysan. kadib markii uu u diiday ayuu ninkii xoog uga qaatay uuna iska tegay. ninkii maskiinka ah ooyin ayuu meeshii la fadhiistay, wuxuuna garan waayey wuxuu sameeyo. ninkii kibirka badnaa markii uu gurigiisa tegay ayuu wuxuu isku dayay inuu kalluunkii jarjaro. isaga oo kalluunka jarjarayo ayaa waxaa lugta ka muday laftii kalluunka, kadib lugtii ayaa ka barartay, wuxuuna la joogaya xanuun fara badan. muddo ka bacdi wuxuu u tagay dhakhtar. waxaa lagu yidhi lugtani bahal ayaa kaa qaniinay, waana in la gooyaa, maxaa yeelay lugtaada xal kalama lahan. sidaa ayaa ninkii lugta lagu gooyay. kadib xanuunkii ayaa haddana kusii faafay. waxaa lagu yidhi waxaa laga yaabaa inaad dulmi samaysay ee bal xasuuso. kadib wuxuu soo xasuustay ninkii maskiinka ahaa oo kalluunka ka xoogayay. markii uu ogaaday meesha laga haysto ayuu soo baxay, wuxuuna soo raadiyey ninkii maskiinka ahaa. muddo dheer kadib ayuu ninkii la kulmay, wuxuuna uga sheekeeyey qisadii dhex martay, wuxuuna ka dalbaday inuu iska cafiyo. ninkii waa uu iska cafiyey. kadib wuxuu ku yidhi, nin yahow, alla ayaan kugu dhaariyey, markii aan kalluunka kaa xoogayay maxaad ku duceysatay? wuxuu yidhi, waxaan dhahay, allow ninkani awooddiisa ayuu u tusay, ee adigana awooddaada tusi ninkan sida uu awood igu sheegtay. qisadani waxaa ku sugan cibro qaadasho. haddii aad ku faanta awood, alla wuu kaa abaalmarinayaa, wuxuuna ku tusin doonaa tabartaada. alla haddii uu awood ku siiyo, mid muruq ah ama caqli ah ama hanti ah, noocii doonto ha noqotee, dadka ha ugu faanin. haddii kale maalin baa laga qaadayaa, waadna u shalayn doontaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gamaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.